كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسن ما أنت halkan aan nagala socotaan waa Asmo official maanta maxaa leedahay asxaabteyda soo dhawaad soo yaaca salaanta jimca wanaagsan ma jirto miyaa jimca wanaagsan waa idin salaamay asxaabta Asmo welcome soo dhawaada asxaabay maanta maxaa idii wadnaahay labadeena waxaan rabnaa in aan idila wadaagno saddex arimood oo kale ah midda ugu horeyso oo tahay inaan idila wadaagno arabno waxaa waaye gabadhii dhimatay Allah u naxariisto oo ka dhimatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo ahayd hodana leeyahay samari iimaan Allah naga siiyo ehelkeeda ilmaheeda waalidkeeda qaraabadeeda Soomaali oo dhan ayay ka dhimatay Allah u naxariisto ayaan leenahay jannadii oo kuwii ayadana waxa ay ka tagtay iyo meesha ay baneysay iyo wixii ay sameyn jirtay kuwii sameeyay Allah naga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ay role model u ahayd waxaan jeclahay kuwa ku dayda wanaag ay sameyn jirto oo ga dayda inuu Ilaahay naga dhigahay Ilaahay ha u naxariisto waxaan kala dhigan karnaa marka asxaabay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws Allah geeyo ayada iyo intii la dhimatay ehelkeeda qaraabadeeda ilmaheeda iyo intii ay ka tagtay dad bay caawin jirtay kulay dad bay wax u tari jirtay okay asxaabay qisada waxay tahay sida tan gabar ayaa waxay tiri waxaan ahay gabar jirta 20 sano waxaan ka shaqeeyaa oo aan ka shaqeeyaa adi please iga dhaaf qosolka mi fadlig ayuu soo kalno asxaabay waxay tiri gabadha ayaa bilowday hadalka waxay tiri waxaan ahay gabar jirto 20 sano waxaana ka shaqeeyaa meel xafiis ayaan ka shaqeeyaa ay tiri waqti walba oo shaqada aan ka soo baxo waxaan ugu imaadaa guriga hortiisa ay tiri gaari madow oo taagan guriga hortiisa in badan aan dhibsaday markii dambe waxaan isku dayay in aan fiiriyo gaarigaas waan arkay qof ayaa ku jira rag ah oo aad aan ola dhacay markii aan arkay oo aan ahayn qofkaas maalin walba aan ag maray hatta marna aan ifoodeynaynin aan la yaabo qofka uu yahay adin markii dambe caadi oo la noqday tiri gaarigaas saan ag mari jiray oo u si ag mari jiray guriga hortiisa yaala waa si ag mara waa soo ag mara shaqadan aan subaxii waan soo noqdaa waa sii noqdaa maalinkii dambe ay tiri asxaabay maalinka dambe ayaan gaarigii fiiriyay si fiican u fiiriyay waxaan arkay qof rag ah oo aad u xishood badan oo markii aan fiiriyay indhihiisa isku dhacaan hoos fiirinaayo markii aan arkay aadaan la dhacay ilaa aan dareemay inaan markii aan arkay gaarigaas oo soo baxaba guriga aan ka soo baxo ama shaqada aan ka imaado oo gaarigaas indhaha qacaan ku siiyo wadnaha aad u ii garaacmay ay tiri wadnaha markuu aad ii garaacmo waxaan dareemay inuu jacayl ihaayo oo gaarigan qof ku jira aan jeclaado asxaabay gaarigaas mido qof ku jiray gabadha ka heshano qof uu yahana ma taqaano qof inuu ku dhex jiro unbay aragtay bas gaarigaas ninka ku dhex jiro ay ka heshay marka asxaabay waxay tiri gabadhaas gaarigaas sida aan u jeclaan jiray mar kula hadlo mar soo kula hadlo saas aan u dhihi jiray tiri mar walba aan xiiseen jiray tiri inaan arko subaxii markaan soo baxo shaqada u soo socdo anoo dhahay aloo ma fadhiya aloo ma jooga gaariga aan leeyahay aan arkaa markuu isagoo jooga aan imaado waa farxi jiray dhahday waxaa dareemi jiray tiri qof ani ii baahan oo jecel oo iraadinayo in uu yahay aan dareemi jiray waa iga dhadhacsanay tiri ma aha hadda waxa ani iska dhadhiciy waay tiri wax jira ma aha jacaylka la dhacay jacaylka ka dhadhiciy gabadha markii dambe waxay dhahday waxaan arkay sidii saas ay dhahday maalin dambe maalmaha kamid ayaan baxay dhahday shaqadaan aaday tiri waan soo noqday awal gaari kuma imaan jirin gaariga dhexda bas aan kusoo raaci jiray oo kasoo degi jiray tiri taxi aan soo qaatay tiri maanta xariifada iska soo dhigay waa soo baxay dhahday gaariga agtiisaan gaariga ku baakintay tiri dhab taxiga waxaan idhahay halkan ii jooji gaariga hortiisa ii joojiye tiri waa ka soo degay tiri ninka taxiilaa waxaan ku dhahay waxay isugu ku soo noqonaa lacagta hataa anoo siinay celin waay dhahday maanta waxaan is dhahay markii hore aan guriga ka soo baxaan ballan waxaan ku qaaday tiri maanta laba mid inaan la hadashid iyo inuu kula hadlo wax ka dhaxeeyo malaha naf isgeli as dhahday asxaabay gabadhi naf isgelis adi gaariga soo qaatay taxiga gaariga hortiisa soo dhigatay waa gaari laan gruusa la gaariyaan rogroona madmadowga ah gaariga hortiisa markay ku baakimtay gaariga ay soo baxday gaariga daaqada qaca u siisaa baaheeleyno waxaan malayn kartaa inaha yaa waaye allah kaasdad abo aniga waaye markaas waxay ku tiri maalin walba inta ay taagan tahay sababta inta u taagan tahay ma ii sheegi kartaa maxaa malaynaysaa in lagu dhahay
والله كو إذا كور سوينا waxay dhahday wax kale ka sugayay tir ninkan inuu wax kale dhaho meesha wax kale aaba ka sugayay tiri inuu dhaho abaayo waa ka helay iyo abaayo saan ahayd abaayo kan eeday meesha aan ka sugayay wuxuu bay dhahabo abaayo miyaha gurigiina wifi ku xiran ayaa free password wax kale meesha u joogo meeshas waxa kale uma fadhiyo gaarigayga waxaan subax u keenaa habeenkan ooga tagaa free password kaas dartiisa aan u soo istaagaa meesha saas dartiisa ayaa u jooga abaa wax kale uma joogo eraali ahaw muxuu ka qabtaa gaari free password kaas oo isticmaalooyaa shaqo kale ma jirto dan kale kama dhacdo wax ka dhaco kale gabadhi qaraacan meel aa joogo email aa jiro aa kala garan waayay tir asxaabay الله ما كل عادي بسم الله جعل أو باسورد جعلت كور هذه إنترنت من إنترنت أسرع جعل هذا عادي جعل هذا كور هرت سلوا على نيسين موجود أصحاب القلب كاس أنت سأوجد بينا كل أنا وإيجا قصرتي قصة أسمر كأن دقيستي أو أنا أخريه وإيجا قصرتي وحاجة على استنا إذا كان إذا لو ذا هاي تذكر وأجا وشخص اللي يبغى والله بلا عجب لو قال لي مال كجيل فديو اسك جعلاني سيده اسك جعلات جعلك هي موقت indama laha la yoro loo dhayn indama laha indama la deegaana ma laha indama laha jaceelka hada jaceel wax ku ogtaha caasho sa uma leenayo indama laha jaceelka oo gaarigaas ka tusta gabadhaas ninkaas ay u bogto waxa istirninka aan ku foodeenin nimanka hada jiro okay nimanka hada jiro waa ogtahay hayarka wadadaas oo iska marayo oo fiirina taalu foodeenaya marka gabadha waxay istirnin asluub leh oo akhlaaq leh oo inta oo xishoona oo marka indhaha ku siiyay oo fiiriyo asaga isi jeesanayo oo hoos qoortiisa aadinayo inaa badal leen waa ila dambo marka aan arkay markii aan arkay dhahday waa jeclaaday oo qofkan jeceelaaba ii galay liajli dartiisa ayaan sas jeceelka u qaaday okay qisada arinta labaad oo rabo inaan idin arinta saddexaad oo rabo sorry inaan idin wadaago waxay tahay maanta gabadhii ahayd deeq afro ayaa rabnaa inaan ka hadalno wax yar barnaamijkeedii ay ka hadashay iyadana tiri in lay aasam rabo aniga gabadhaas horta waa fikirkeedii ka hadashay dabcan saa u malaynaya adiga see u aragtaa fikirkeeda waa cabsanaysa qabriga ay ka cabsanaysaa laga yaabo inay tahay samaha sax waaye taas koley gabadhaas way cabsatay oo waxay istiri dembiga aad gashay darteeda inuu ilaahayba kuu dembi dhaafi waayo aba laga yaabaa istir inta nooshahay hadaa dhimatidna maxaa ku dambeeyo waxay maqashay cadaabul qabriga waxay maqashay jahannama waxay maqashay markii la dhinto in lagu soo celinayo lagu soo nooleysinayo oo lagu soo fariisinayo oo lagu weydiinayo su'aalo badan maxaa sameysay waqtigaaga maxaa ku sameysay amalkaaga muxuu ahaa maxaa kan badan lagu dhahaay soo maaha markii la ajli darteeda ay u tiri gabadhaas aniga ma yeeli karo qabri inaan galo oo meel cidla oo mugdi ah inaan fariisto dadka qaarkood mugdiga aad ay u nacab yihiin run ahaantii mugdiga marka aragtid adina shirkaa cabsanayso mugdigaas oo mugdiyo kasii hooseeyo oo dhulka hoostiisa maxaa malayn karta adiga oo la suuraysan kara maaha adiga oo haddana maadaama gabadhaas waxaa usii gashay inaysa diinta aqaanin haddaa maanta diinta aqaan lahayd way isqancin lahayd wax kale isku qancin lahayd laakiin maadaama ay diinta aqaan shaydaankan wax alla wuxuu rabo u sawirto sax marka asxaabay dadka oo sida qaldan ugu jawaabayaan gabadhaas waxaan dhiraa si qaldan ha ugu jawaabin aan u duceeno oo diinta ha loo sheego culimada ha loo diro maxaadarooyin dadkii oo nambareeda iyo social media-da maxaadarooyin ka sheekeenaya jannada ilaahay dambi dhaafka siduu ilaahay ugu dambi dhaaf adoomadiisa mid walba oo dambi gal uu dambi ugu dhaafo nin baa la yiri 99 qof ayuu dilay ayada qof ma dilna umaleynaa gabadhaas I hope sida umaleynaa inay qof bili aadan aysan dilin dambi kale ilaahay ay ka gashay waa dambiga ugu daran dambi la galo waa dhiig bil aadan oo sameeyo dhiiga bil aadanka ilaahay wuxuu yiri bil aadanka baa ku cafin kara moogi aniga kuma cafin karo wax walba ilaahay uu ka cafinaya wax walba oo dambi gashay ilaahay uu ka cafin kara laakiin aniga ma ka cafinayo wixii xaq bil aadan ka gashay in xaq bil aadan galin ayaan jeclahay sida kolay ma ogi laakiin aan jeclahay ilaahay dambi ka gashay oo way heystay oo way isqaawisay waa ilaahay dambi ka gashay kaas dambi walba ilaahay ka gashay ilaahay uu ku cafinaya deeqoy ilaahay u toobad keen ilaahay ninkii 99 dilabo waa kii uu toobad keenay meel walba oo dambi ku sameyn jirtay ka tag diinta ilaahay baro aan ku leenahay sidoo kale waxa jira ninkii waxshal kalbi inuu ahaan jeclahay oo markii dambe saxaabiga noqday ninkaas oo dilay Hamza nabiga adeerkiis nin nooco ayuu ahaan karaa nabiga adeerkiis ninkii dilay waa nin dambi weyn
dembi weyn ayuu galay nabiga adeerkiisa ayuu dilay oo saxaabi ah haddana oo muhaajir ahaa ayuu dilay waa nabiga adeerkiisa nabiga markii la dilay uu ka naxay uu arkay xamse oo yaalo oo calooshiisa inta banaanka la soo dhigay uu arkay aad ayuu uga naxay nabiga uu yiri daboola waa tuu ilmeeyey uu yiri waxaan kugu argudi doonaa ayadana 70 ma ahayd 90 maqaano oo nin ayaan kugu argudi doonaa oo quraysh ah waa tuu yiri ninkaas ayaa markuu nabiga maka uu galay wuxuu yiri waa waxshi markaas waxaa lagu yiri waxshi wuu baxay u carraado ka carran markuu ku maqlayna soo socotid nabi allah markaas uu yiri hala doon waxshi Soomaa yaa uu islaamay hala doon uu yiri nabiga waa la doonay markii la doonay waxshi oo la soo kaxeeyay oo la doonay wuxuu yiri maxay gartaan kasal nabiga ku asuu igu cayaa yiri nabiga waxaa la yiri saas uu ku yiri wuxuu yiri soo bax toobadkeen ilaahay u toobadkeen kaalna waa islaamaysaa markaas uu yiri no waa sinaystay qof bil aadan ayaan dilay wax alla waxaan rabaa sameeyay ilaahay aan u shariik yeelay wax alla waxaan rabo ayaan sameeyay sidee toobad leega aqbalaya muxuu yiri nabiga aayad ay u soo qoray wuxuu yiri illa man taaba wa aamana wa amila saalihan aayadaas uu soo qoray markii dambe ayuu soo noqday haddana markaas uu yiri no aayadaas ima qancin aniga kuma qanci karo in leega aqbalayo inaan toobad leeyahay because wuxuu aaminsanaa nabiga adeerkiis ayuu dilay oo nin qaali ahaa oo nin diinta wax weyn ku ahaa oo lahaa ayuu dilay ayuu aaminsanaa in qof bil aadan dilay zinaystay ilaahay u shariik yeelay waxa la wuxuu rabo sameeyo aaminsanaa Soomaha aayad kale oo nabiga haddana soo nabiga loo noqday nabiga lagu diidaa la yiri hadda nabiga uu noqday aayad kale uu soo qoray haddana aayad kale markii loo keenay aayad kale markii loo keenay hadda ma xusto aayad kale loo keenay wuxuu yiri ما يغفر ما يهد إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عايد يهد إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي هدو دونا أيوير لك أنا لابد إنه بدونين بإلهي إن أنا إسلام نقضوا إيدم بداف إلهي ما بدوننا يوم علينا أيوير مركدم إلا مركدم الله كيناي عايد يهد قل يا عبادي الذين آمنوا اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مرك إلهي رحمتي كقوسنين نينك سيدي وكو إسلامي وسيدي وكو نقض إسلام سازرت هذا ينقلين هذا قوي رحمة إلهي كقوسنين وحبها دي عضلين وشيطان كو قرحين هذي اللي آسو قبل عذابك وجليسا كنا نقنيسا عذابت إلهي ضدبوا أبوري جنة إلهي ضدبوا أبوري جنة إلهي هو شقيسن كرتا عذابك سنة على شقيسن كرتوبة كان ما أنت الدم بقعد قشيء ووح إلهي كقشيء وقرآن ملايني حد قف بالآذن عادل حق بالآذن عادل هيسن حول إسلام يضو بالآذن اللي عادل قاذن حتى حول إسلام قاذن حول إسلام كوعلي هدي عاد قف بالآذن دشيني حتى قفك بالآذن كحقي سواء لقى قاذا هدي كلو إلهي دم بق أنت أنقنا عاك قشيء وياها إن تجوف فنانة هاي oo asqaawin jirto oo jirkaaga banaanka aad dhigi jirtay waxaan ku leeyahay toobad way ku furanta walaalay macaanay toobad keen ilaahay adna ku soo hanuuniyo ku duceynayna jannatul firdaws ilaahay geed masaaraxda moogtahay ilaahay waa cadaabka kuma daynaysa ha marba naftaada la cadaabaya horta nafta waa wax la cadaabayo ruuxda cadaabkeeda waxa ka dar nafta todobada sama in laga soo celiyo adoo toobad keen todobada hadaa dhima todobada sama ayaa inta lagu geeyo lagu soo tuuraya inta la soo tuuro naftaada ayaa dhulka lagu soo celinaya haddii kale marka aad toobad keento oo ilaahay ku aqbalana waxa adiga oo lagu jecel yahay albaabada jannada laga albaabada samooyinka dhan lagu furayaa illa albaabka jannada aad ka gaartid hadaad ka heshay videogan subscribe like share commentiga hoos dhiirigelintiina aan ku aragno hadaad rabtaan qisooyin sidan oo kale inaan idin la wadaago jimca kastana noo soo sheega bye